sanad kasta maanta oo kale ayaa guud ahaanba laga xusaa Somaliland 18 May oo ah maalin ku weyn shacbiga Somaliland waana maalintii ay Soomaaliya inteeda kale ka go'day shacbiga Somalilandna ay go'aansadeen inay gooni isu taagaan waxaana maamulka gobolka Togdheer ay munaasabad ballaaran oo lagu weyneynayo maalintani ay ku qabteen xarunta madaxtooyada gobolka Togdheer iyadoona ay ka soo qayb galeen xafladaasi wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland maamulka gobolka Togdheer ee ka degmada Burco waayeel waxgarad haween iyo marti kala duwan iyagoona xusay qiimaha maalintani ay u leedahay guud ahaanba shacbi weynaha Somaliland tirada soddonaad ee Ilaahayna soo waafajiyay caawa inagoo caafimaad qabna nabadgelyo qabna insha Allah taala waxaan rajaynayaa sanadkiisa inaynu ku gaarno basbash iyo barwaaqo waa maalin qiimo weyn u leh shacabka si guud reer Somaliland إلهي سبحانه وتعالى نمهد علينا دولة فرماتو شيغيا ادكسو غوريسا كم شيغيا إنا خدامين دبر لقولين يعني مير قمو وحيجي وصول لقولي سوماليا هنواتو هاي لا شو وحيجدين يا جبان وما انت نمدوني سي inaynu hiigsano horumarkeena hambalyo waxaynu u direynaa inteena halkan fadhiya iyo inteena maqlaysa inagoo joogna xaruntii gobolka Togdheer oo halkii laga dhawaaqay jiritaanka Somaliland la soo noqoshadii xorriyadii ka luntay 60kii dalku meel wanaagsan buu marayaa waanu sii soconayaa cid uun gureyn kartaana ma jirto aduu baarlamaanka u sharaxano wallahi inay dib ugu soo noqon dalka waa in dib lagu xukumaa kuwa xamar u shaqo tagay ee ciyaalka u yeelaya maanta waxaynu uga baahanahay xamar ma jirto ilaahay wuxuu ina siiyay dal ballaaran oo bad leh oo buur leh oo banaan leh oo adduun leh oo wax walba leh labaad maanta waa maalin qiimo iyo qaayo weyn inoogu fadhiya waa 18 May caawa waxa weeyaan munaasabadanu ay dhimay oo soo jirsatay ma sha Allah tabarakallah farxad ayaa inoo sugan war qofka meesha taga hadduu soo noqdo yaa la kala jeclaysan kurka laga jaro diintana meel looga eego intii shahiiday ee xabaarada u gashay ee la xasuuqay ee dhigeeda u daadisay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay jannada ku casuulo shada ma doonayo laakiin qof waliba wuxuu doonayaa wax qabadkiisa iyo horumarkiisa iyo dal waliba isu haya waxa leeyahay dhalinyarta waalidiintu ha gaarsiiyaan ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco